بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم مركله iyo barnaamijkeeni caafimaadka iyo ramadaanka iyo cuntada oo aan maxayto wacyigelinta ramadaanka sida bulshada ay u gutaan ayagoo caafimaad qaba haduu Ilaahay yiraahdo aan ugu talagalnay ayaan markale aan ku wada kulanay waxaan leenahay markale insha Allah taala Ramadan Kareem tan kale waxaan hore uga soo hadalnay barnaamijkii ugu horeeyay xalqooyinka hore oo ku wajahnaa يعني أفريقيا iyo muxuu ahayto saxuurta oo yani qaabka yani loo baahan yahay in muxuu ahayto loo wajaho oo aan soo niri saxuurta waa in cunto badan oo shiilan oo baruur badan oo basbaas badan waxa soo dhan waa in la iska ilaaliyo caloosha gaajadeeda inaan lagu dhumin oo aan la yani la raacin in yani waxyaabaha yani loo baahan yahay inaan niri maaragtay in la qaato yani timirta oo aan niri awood badan bay siinaysaa qofka oo macdan badan ka buuxdo potassiumka iyo magnesiumka iyo ku jiraan iyo muxuu ahayto xataa sokor degdeg milmayso awood energy siinaysa qofka sidoo kale waataan uu soo sheegnay waxyaabaha kale ayagana awood siin karaayo macdanta ka buuxdo sida fruitska kamid yahay mooska waxyaabahaas dhan iyo cuntada inaan la keeno over eating inaan la sameeyno cunto badan in la cuno maxay dhibaato badan keeni karaysa maanta casharkeena saxuurtana sidoo kale waataan u niri cuntada yani carbohydrates complex carbohydrates la yiraahdo waa in muxuu ahayto la daa'ima la iska ilaaliyo mid macmacaanka la yiraahdo mar refined ka oo mar degdeg caloosha ka baxayso 3 saac ku baxayso tan kalena waxaan niri ilaa 8 saac ay ku daahaysa hadaba caawa marka xalqadeenan waxaanu ku eegi doonaa haduu al yiraahdo hadii arimahaas aan soo sheegnay yani si qalad ah loo galo oo waxyaabaha aan ka digaynay maxaa imaan karaya oo dhici karaya waxyaabaha laga digayo wacyigelinta ku wajahna waa mid ah yani hadii ay dhacdo saxuurtii meeshii aanu ka niri hala qaato cuntada aan soo sheegnay hadii la isticmaalo cunto shiilan hilbo baruur badan waxyaabaha muxuu ahayto aad iyo aad yani u sameyn karaya muxuu ahayto geed kuleel kale ama hadii la isticmaalo waxyaabo macaan badan iyo maxaa imaan karaya marka kow waxaan ka bilaabaynaa marka waxyaabaha shiilan markuu qofka isticmaalo oo wadana ku seexdo marka ugu horeyso horta waxa dhalanaya dheefshiidkii caloosha ayaa dhibaato keenaysa يعني dhibaato ku imaanaysa dhibaatada ku imaanaysa waxay noqonaysaa ama dibri ayadoo noqoto caloosha dhaqaaqeedo yaraada dacwashiir yimaada waxa imaan karaya xanuun ba imaan karaya boga ah waxa imaan karaya marmar laba iyo matag maalinta xigta waxa aad ugu badan oo imaan karaya laabjeexa ku soo noqonaya oo la yiraahdo gastroesophageal reflux disease-ka oo macnaha yani cuntada ku soo rogmaysa ama laabjeexa ku sameynaysa qofka يعني صائمك او aad u dhibta runtii maalintii markuu sooman yahay waliba oo aad u dhibi karaysa ayaa ku soo noqonayso marmar hadii qofka waliba uu horay u qabay dhibaatooyin gastritis kala yiraahdo Soomaalida se gaaska u taqaano ama bog calooleedka la yiraahdo peptic ulcer ama maxayto oo yani noocyada kala duwan waxa imaan karaya dhibka intaas waa ka sii badan maxaa yeelay waxa sii kaabaya cuntadan culus oo la cunay waxay keeni karaysaa yani in dhacaan badan soo saarto dhacaankaas badan oo yani acid-ka u badan inuu sii dhibo caloosha ibirkeedu sii gubo oo hadii uu cudurkii qabayna dhibaato weyn u geeni karayso marka insha Allah taala wataanu nirbisha wa bil caafimaad marka waan insha Allah taala badanaana ma dhacdo laakiin waa on laga digayaa dadka qaba cudurrada gastritis ama gaaska la yiraahdo ama cudurrada laabjeexa la yiraahdo GERD ama gastroesophageal reflux disease-ka inay iska ilaaliyaan habeenkii waxyaabaha ay ku saxuuranayaan iyo cuntada badan oo la cunayo hadana markiiba la seexanayo waa saatan ka soo sheegno niri markuu dhow yahay salaada markay dhowdahay ayaa la rafiican oo nus saac hal saac ka dhimanta in la saxuurto kadib salaada la aado si culeyskii la seexanayo looga yani siraad koro arimahaas oo waliba ku wajahan hadda yani barnaamij gaar ah ama 10 gaar ah uma hadlayno arimaha gaaska ama gastritis-ka
ama arrimahan laakiin waxaan ku keennay hadda yani raashinkii iyo cuntadii dhibaataday u keeni karayso maaragtay maalinimadii oo ku wajahan dhinacan gastriteska iyo ku wajahan muxuu ahayd peptic ulcer waxaa dhici karayso mataga dad qaarkood waxaan aragnay qaba weliba maalmaha ugu horeeya oo 10 maalmood ugu horeysa ama usbuuc ugu horeeyo bukaano badan oo noocaas ah ayaa noo yimaado taasna badanaa waxay la xiriirtaa cuntadii calooshii oo waqtigii qaadan jirtay cuntada isbedel ku dhacay gaar ahaan midda habeenkii taasna ay keenayso markaa in muxuu ahayd isbedel uu ku dhaco maayta dheefshiidkii iyo cuntadii oo aan ahayn cunto caawinaysa socodkii caloosha iyo dhaqaaqeedii iyo muxuu ahayd shaqadeedii kale xagga dheefshiidka taa marka waa midda yani oo ugu daran loona baahan yahay in ana bulshada aan ugu adeego aan ugu marag tan kale ee ayadana muhiimka aan rabno maanta casharka inaan uga hadalno waxa waaye isla taasna la xiriirta waxaa dhacda in muxuu ahayd wataanu ka hadalnay oo aan niri biyaha yani afurkii aan lagu bilaaban biyo badan balse markii la afuro kadib ilaa ay qofku uu ka seexanayo ama uu ka suxuranayo biyo badan ha cabo ilaa 8 galaas 8 yani galaas oo biyo ah 2 galaasna ha cabo maaragtay xilliga suxuurta ilaa 10 galaas isku gaarto sida culimada caafimaadka ay qabaan taas haddii ay dhacdo inay hoos u dhacdo oo qofkii uu qaadan kari waayo ama uu qaadanin biyahaas waxa hoos u dhacaya muxuu ahayto waxyaabo badan hoos u dhacaya oo maalinimadii uu isku arki doona calaamooyin aad yani runtii oo dhibi karaya gaar ahaan waliba haddii uu ku sii qaato muxuu ahayto saxuurtii shaah ama kafee ama kafeeyina ku jirto ama waxyaabahan kafeeyinada lahoo cabitaanka mamacaanka yani sida kokolada iyo faantada iyo sprite-ka iyo waxyaabaha la midka ah oo kafeeyinada ku jirto taas waxay sameynayaan kaadi badanna waa sameynayaan cusbo badanna waa soo baxaysaa halkaasna waxaa dhacaya maaragtay in maalinimadii pressurkii uu hoos u dhaco oo calaamooyin badan oo la xiriira markuu pressurka hoos u dhaco ay ku soo baxaan gaar ahaan weliba yani duhuradii wixii ka dambeeyo oo noqon karaya qofkii dhidid yeesha tabardaro wareer soo dhaqaaqi waayo shaqo qabsan waaya يعني هدو سو فديستن aad u dareema hadu jiif oo istaaga aad u dareemaya yani waxyaabahaas oo dhan ayuu isku arkaya maxaa looga samata bixi karaya waxa looga samata bixi karaya in yani biyo badan la cabo koow aanan la cabin yani muxuu ahayto xilliga saxuurta minaan yani shaah badan iyo waxyaabaha bixin kara cusbada iyo waxyaabaha kala bixin kara inaan la cabin waxaa dhacaya marka gaar ahaan weliba markaasaan sheegaynay shaahi wixii la cabo oo cusbadii ay dibadda u soo baxday yani biyo badanna u dhumiyo cusbo badanna dhumiyo volumkii yani markii horena biyo yar uu soo cabay waxay keenaysaa barasharkii hoos inuu dhaco taasna ay keenaysaa inay dhib ku noqoto waxaa kaloo aad u raaci karaya madax xanuun aad u xoogan oo markuu barasharka hoos u dhaco asigana aad u weheliya oo runtii weliba galbihii aad u sii darnaanaya taasna waxaa loo baahan yahay in lala socdo in uu muxuu ahayto uu sabab u yahay muxuu ahayto pressureka hoos u dhacay midda kale iyadana muhiimka ah waxay tahay in yani biyihii la cabayey oo yani waqtiga dheeraa ahaa ka sokow haddana inuu muxuu ahayto saxuurta uu ka fikiro maaragtay waxyaabaha uu qaadanayo gaar ahaan waxyaabaha kafiinadii shaah iyo waxyaabaha ku jira marka maanta casharka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa soon caafimaad leh ama ramadaan caafimaad leh waxaana rajaynaya insha allahu tacaala in maaragtay aad ku camal falataan yani wacyigelinta yani casharkan ama mawduucan uu xambaarsan yahay hada wabillahi towfiiq wasalaamu allahu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu